السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري سيدا ويدشيهن بكسو دبادا ساف تي في وهالكاد kala socotaan Arsenal iyo wararkeeda iyo waxyaabaha ku saabsan oo idilba marka haddii aad fadlan subscribe aad saarin channelka subscribe saar si aan asxaab fara badan oo Arsenal fans aan u helno haddii aad ila socoteen aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kusoo dhawo walaal wararka maanta halkan kugu hayo aan kugu hormarsiiyay Adam Ramsdale oo ah Arsenal goalkeeper ayaa wuxuu saxiixay heshiis aad u dheer kaasoo soconayo June 2028 2028 ayuu soconaya heshiiska Arsenal uu la galay in ciyaaryahanka marka uu saxiixay heshiiskan wuxuu sheegay in maartay Arsenal markuu iimaanahay ay fanska badi aysan ku faraxsaneen aysan aaminin hase ahaatee wuxuu yiri season gudihiisa waxaan tusay wuxuu yiri seasonka intuu socday jaanisada la isoo bandhigayna aan ka faa'iideysanayay waa isla jaan qaadnay oo waa isfahnay oo Ramsdale baad ku heyseen buu yiri haddana waxaan go'aansaday inaan maartay farxadii aan la sii wadaagno oo aan maartay aan heshiis dheer aan halka kula saxiixay Arsenal ciyaaryahanka waa saxiixay sidoo kale Granit Xhaka ayaa isna la xaqiijiyay in Arsenal uu ka tagayo seasonka markuu sida u dhamaado Bayer Leverkusen ayaa waxay ku saxiixanaysaa lacag 15 milyan sida uu sheegayba Fabrizio Romano wuxuu yiri the deal is 90% completed from what I know heshiiska uu maartay inuu ka tago Arsenal oo na u saxiixay Leverkusen 90% waa maartay waa la dhameeyo 10% waxyar un baa u harsanba inta aan ogahay hadda ayuu raaciyay marka Granit Xhaka maxaad ku xasuustaan Arsenal maadaama ninka uu naga tagayo FA Cup waa lagu xasuustaa maxaa kaloo Arsenal ay ku xasuustaan مسليهن أرسنال عياريها إن سنة كان أي دران مهن مادام هو خد كده أو فعنا مركل له حاجة نبت أيهان يو حد دفاع عشاء مركل له مثلا أوديجارد مركل غير أو نبتنا خد كده ستيبل كهاي مرور بتجوج أرسنال أسجع يوها وعلى وقل ماني كان وحقوق الميلاني كان إن سيزن كان وجوجو تشامبيونز ليج وديلو مادام حلي هوري ودن بيسيونا شقستي يعني وحي فكرة قيبتكم من تجد ولا وذا كرتا sida oo kale Emil Smith Rowe asna Arsenal season kan marka uu sida u dhamaado ayaa waxay ka wada hadli doonaan mustaqbalkiisa halka uu ku dambeyn doono ma diri doonaan oo in la sii daayo rabaa ciyaaryahanka mise booskiisa ayuu cirirsan doonaa uu joogi doonaa Arsenal season kan markay dhamaato ayay ka wada hadli doonaan sidoo kale Kevin Campbell oo ah Arsenal legendkeeda ayaa asna wuxuu ciyaaryahanka message ugu diray inuu maartay hal boos uu ka kaado oo ciyaaryahanka hadda lama garanayo ma number 8 ba ma number 10 ba ma garab ba ma fels number 9 ba marka wuxuu yiri soo mustaqbalkiisa uu ku ilaaliyo Arsenal inuu ku joogo waa in hal position uu yeelo uu ka ekaado oo lagu garanayo uu dheelayo marka ciyaaryahankana seasonka markuu sida u dhamaado ay Arsenal ay kala hadli doontaa mustaqbalkiisa halka uu ku dambeyn doono sidoo kale warar aan lagu kalsooneyn ayaa waxay sheegayaan Joao Cancelo oo ah ciyaaryahan hadda Bayern ku joogo loan ahaan ama ahaan Man City ka imaaday ayaa waxa la sheegayaa in Man City ay ku kala bedelan doonaan Joao Cancelo iyo Kieran Tierney inay ku kala bedelan doonaan suuqani hadda soo socda samarkan wararkaas xaqiiqo ma ahan hasaatee aad baa loo wada sidoo kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in Arsenal Kieran Tierney ay iibin doonto team aan Man City ka ahayn inay ka iibin doonto maadaama rivals Joao Cancelo maadaama suuqa uu yaalo ay soo qaadan doonaan oo maartay Arteta wuxuu arkaa inuu ciyaaryahanka oo line up-ka ugu horeeyo hore kala sii qabsan karo marka wararka qaar ay ayaguna sida sheegayaan hasaatee maxaad ka leedihiin khiyaari hadii ayba maartay Arsenal ay damacdo in ay Kieran Tierney Joao Cancelo ay ku kala bedeshaan Manchester City runtii waxaa la sheegay in ciyaaryahankan Kieran Tierney uu aad u jecel yahay wuxuu jecel yahay oo iska ogtiin hadii waa ciyaaryahan labada dhinacba ka diyaarsan markii la korid uu koreeyaa soo noqosho markii la dhahana waxa way waa Kieran Tierney waa ciyaaryahan orod badan oo uu difaacasho fiican yahay waxa uu kaga fiican yahay Zinchenko waxa weeyaan waa difaacashada soo noqoshada uu soo noqonayo marka maxaa ka leedihiin hadii Arsenal ay maartay swap deal ay kala bedeshaan labada ciyaaryahan iyagoo aanan labada kalaba aan lacag ka bixin sidoo kale Arsenal weegan hadda bilaaban hayo maanta waa Jimco Khamiis Jimco Sabti Axad Isniinta Monday soo socoto lacag waxay diyaarinaysaa 92 milyan lagu sheegay ayna maartay
West Ham ay ku daandaansan doonto ay ku leedahay ciyaaryahanka lacagtaasna idiin sheegnay ma nagu soo wareejinaysan ciyaaryahanka waa idin sidee. Runtii waxaana wararka ay sheegayaan in Arsenal Declan Rice iyo Moises Caicedo ay u diyaariyeen lacag 170 milyan lacag inay u diyaariyeen oo haddii heli karaan labada ciyaaryahan ay ku soo qabtaan. taas waxay ka macnaysan tahay Arsenal in khadkeeda dhexe inay bedesho waayo khadka dhexe hadda duq baan ka nahay. Arsenal hadda goolkiibaha laga soo bilaabo ilaa difaaca kulli waa dhalinyaro, ragga horena kulli waa wada dhalinyaro, laakiin dhexda waxaa noo fadhiyo odayaal jixiridayaal ah oo gaboobay oo 30kii kale xagga football markii loo eego xagga dhalinyaranimo markii loo eegana 30 sano jir waa ninka meesha ugu xoog badnaa moogta. laakiin football markii ay tahay dhexda waxaa noo taagan waa niman guxusha ah oo baasha ay kasii dhamaanaysaa noo taagan. marka halkaana Arsenal in ay bedelayso ay ku caddahay. runtii sida uu ka hadlayo uu sheegayna Arteta wuxuu yiri it will be a busy summer, waxay noqon doontaa summer aad Arsenal ay suuqa ugu mashquulsanaan doonto. marka ciyaaryahanadaasna waa arki doonaa definitely. horta waxa xaqiiqa Arsenal Declan Rice iyo Caicedo horta labadooda mid way keeni doontaa haddii aysan keenin mid ka mid ah, waxayna u badan tahay Declan Rice inuu imaan doono. lacag waxay ku qaadataa Arsenal haddii ay Arsenal West Ham ay qaado Conference League maadaama hadda final ay joogto ay soo qaadaan. runtii waa Arsenal inay ugu boodaan baa laga yaabaa 120 milyan ay isku xiraan. marka isaguna waa arki doonaa ciyaaryahanka. sidoo kale waxaa la xaqiijiyay Martinelli in uu labadan game ee Arsenal u dambeeyo seasonka inta ka dhiman uusan soo xaadiri doonin maadaama gamekii Brighton oo ankle injury uu ku galay oo anqowga dhaawac uu ka gaaray. waxaa la sheegay in uusan soo safan doonin ciyaaryahanka uu maqnaan doono. taas waxay ka macnaysan tahay seasonka dambe ma arki doonaa iyo preparationka Arsenal ay ku soo ciyaari doonto USA meelaha baa isku arki doonaa. warka ugu dambeeya waxa weeyaan waa ciyaaryahankii Balogun Arsenal strikerkeedii oo haddana League One ku maqan oo hadda sanadkan top scorer ka ah. ciyaaryahanka wuxuu bedeshay dhalashadiisa ayuu bedeshay England ayuu ka bedeshay USA ayuu u bedeshay. runtii hadaladiisa sida ka muuqatayna wuxuu sheegtay Arsenal haddii uu kusoo noqonayo oo seasonkan markuu soo noqdo inuu codsan doono inuu number 1 striker uu noqdo ama back up Jesus meesha u fadhiyo oo ciyaarta 6 markii la gaaray ciyaarahan la soo gelinayo. runtii isna waa arki doonaa Arsenal ciyaaryahanka waxay ku sameyn doonto inay dirta ay u badan tahay leeyahay ciyaaryahankaas, balse waa arki doonaa inuu sii joogo iyo Arsenal inay dirtaba. haddaba khiyaarey wararkeena maanta idinkugu heena halkani inta ayuu naga yahay. waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wixii commentiga qaybta commentiga nagula wadaagi kartaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.